لايف كاجي ويا لا فيديو كدو من هذه كدو هذه الحين حفصه ما ادري يعني ما سكسك دائما ابا وحري لسبيد ابا يصير مع هذا ما ما راح اقرص بقى كان عايز انا سمعت يا هذه عايز انا كوغي ما ادري هذا نما كولا هذا سؤال ما وحسيلك قفتك قلت ناقص رايد ناس سؤالك بخي وبخنا ناقتي بكره هذا الرايد نو طبنا قد بجوكت ولا انا kulan wacan Soomaaliyeed ilhantiin ku soo dhawaada muuqaalkan oo ahaa 24 saac la soo dhaafay muuqaalkii baraha bulshada ugu hadal lahaynta iyo saameynta badnaa muuqaalkani waxa ku dagaalamaya ama isku haysta gabdha Soomaaliya sida la soo xigtay ama la sheegayna qaraabo ah ama ehel ah marka laga yimaado Soomaalida weyn ee kore laga yimaado baryaha kani waxa soo badanayay dagaallo u dhaxeeya haweenka isticmaala baraha bulshada dhalinyarada iyo waliba dadka marka iyaga ah ma kasta lagu tilmaamo laakiin waxa jira dad ka qayb qaata dabcan dagaaladaas iyaga ah haday ficil tahay haday qowl tahay iyo haday boonboonin kala tahayba intaanan u gudagelin qodobada dhowrka ah ee dul istaagi doono ay khatarta ku ah Soomaalida iyo dhaqankeeda iyo diinteedaba waxyaabaha nagu cusub ama bilahani nagu soo kordhay intaan u gudagelin muuqaalka dhameystiran waxaan ka codsanaynaa fadlan nagu soo biir channelka subscribe share isla markaana muuqaalkan la wadaag asxaabtaada iyo saaxiibada dhammaan kugu xidhan mahadsanid waxaa hal mar baraha bulshada isla qabsaday muuqaalkan ama clipkan idin muuqda ay ku dagaalamayaan gabdhahani dhalinyarada ah isla markaana da'yarta ah naguma cusba dagaal in ay laba dhuucil dagaalaan ama laba nin dagaalaan ama laba beel ay dagaalaan naguma cusba oo wax hadda cusayb ah oo maanta aan inagu boonbooninayno nagu cusub ma ah laakiin waxaa nagu cusub in si live ah intii dadkii la soo galo TikTok live ama isku balansado meel duur ah oo cidina joogin ama haday joogtana dadka iyaga ay yihiin kuwa duubta kaliya oo faafiya waxyaabaha xun iyo faarka iyo waxyaabo markaasi anshaxuma oo haboonayn bedelkii ay kala qaban lahaayeen oo ay raadin lahaayeen maslaxad ku aadan dadka isaga ah heshiisiintoodii iyo waliba arrinka isaga ah si dhaqso ah wax looga qaban lahaa gabadhan yarta ah sida ku xusan muuqaalka iyada ayaa markii hore ka soo hadashay muuqaal ama waxa la iska weydaarsaday baraha bulshada gaar ahaan TikTok taasi oo halkaasi la isu dhaafsaday oraah ama erayo markaas iyada ah dabcan sida ku xusanba muuqaalka ama aad ka dhadhamin karta gabdhahan carabkoodaba durahayay midba midda kala durahayay laakiin waxa dhacday in ay soo bahaystaan haween badan oo ay dabcan imaadaan gurigii ay deganeyd gabadhaas yar ee miskiinta ah taasi oo si xoog ah intii markaas iyada taleefanadii la wada furtay lagu khasbay oo la yiri hadii halkan inaan ku dhigno ama aan ku dilaa aan rabin si degdeg ah live-kii inooga raali gali adiga oo ay ku maqlayso Soomaali weyn iyo mujtamaca meel kasto ay joogaan muuqaalkani marka waxa la yaab leh in ka badan dhowr kun oo qof ay soo gelinayeen maanta barta TikTok-ga iyo sidoo kale YouTube-ka Facebook-ga iyo baraha bulshada ee dabcan platform-ka ay isticmaasho Soomaalida nin walbana waxa uu dhahayay raali gelin xoog ah waliga qof ma raali gelisay ama ma lagu khasbay in wax aadan markaas iyada ah damiirkaagu iyo dadnimadaada aysan ogoleen inaad samayso ficil ahaan ma lagu khasbay dabcan siba qofkan bini aadmiga ah si walbaba ha ahaatee khaladka wuu ka dhici karaa oo khaladka soo oga dhacay qofkani macquul ma aha inaad tiraahdo laakiin adiga laftirkaagii haddii markii hore aad khalad lahayd inaad tiraahdo khaladkii baan ku adkaysanayaa waa ku dadnimo xumo oo dabcan waxa ka sii ceeb iyo xumaato iyo dhib badan oo ka sii bahalki badan in hadduu alla ku idmaya aad ku sii adkaysato waxyaabihii markii hore aad geysatay ee dhibaato ahaa haddii hadal laga sheegtay uu ahaa iyo hadduu ahaa dabcan gacan aad geysatay ama khalad aad gashayba marka haddii aad ku sii adkaysato waxay wax u dhibaysaa dadnimadaadii waayo qof khalad ku muxuu ahaay ilaahina ka careysiyay ummadina isku diray baad noqonaysaa marka gabadhan yar oo la kala muxuu ahaay la kala dafay muuqaalkani isla markiiba oo kuwii meesha joogay marka iyaga gabadhan la socday ee muuqaaladii duubteen
si khaldanna ay baraha bulshada usoo geliyeen ayaa wax looga kala falcelinaya si kala duwan taasi oo lalahaa gabadhan miskiinta ah muxuu ahaayey waa la khasbay oo raaligelintan wax iyada ka imaaday maaha waa run oo sida hadda muuqaalka ku muuqata hadda raaligelin bixi baa laleeyahay waa la kor taagan yahay oo waxaa loo wataa ulo in la dilaal marka hore loo imaaday markii dambe oo si degan oo islaamnimo ay ula hadashayna waxaa lagu khasbay life inay soo gasha qasab looga dhigay waxaan rabnaa marka inaan wax ka nidhaahno dadka buunbuuninaya ee ka dhigahayo dadna waxay leeyihiin waa fulay oo way cabsatay oo waxay u adkaysan weyday sidii marka hore ay lahayd kuwaasi oo doonahayo in halkaasi dhib uu ka dhaco dhiig uu ka daato gabdhaha halka ay isku laayaan ilaa iyo beel ama reerba ay gaadho waxaa marka ka dabcan aan bogaadinayaa oo si akhyaarnimo oo muxuu ahaayey dabcan degan u hadlaysa gabadhan miskiinta ay gurigeeda loogu imaaday oo hadduu alla ku idmayo haddii xitaa xoog loo sheegto oo xitaa awood loo sheegto qofka markii laga raayo ama laga badiyo ama laga adkaado micnaheedu hadduu isdhiibo ma ahan qofkaas inuu doqon yahay inuu fula yahay ma aha waa inuu dantiisa garad yahay meel fogna uu wax ka arko gabadha marka yara miskiinta ah waan bogaadinaynaa dabcan arrinta ay samaysay oo ah inay lifeka isaga ah ee lagu khasbay aysan ka leexan raaligelintan ay samaysay ugu dambayn go-aankeedii ay ka gaadhay oo ah inay raaligeliso gabadha walaasheeda iyadoo oo weliba muuqaalkii hadda maanan soo qaadinin ay ku xustay inay yihiin gabadhan iyo gabadhanba laba ilmo adeer ah islamarkaana loo kala sheekeeyey marka horeba dabcan sidaasi ayay muuqaalka ku xustay adigan idaawanayo haddii maanta khalad aad gasho ood ka gasho khaladka laba ayuu u kala baxaya midaad alla ka gashay iyo minaad aadamad ka gashay kaad alla ka gashay isaga ayaa mar walba muxuu ahaa toobadiisa lagaa rabaa inaad uga laabato kii kaa cafiyana weeye kaa cafiya kugu cadaabiyaaba ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa muxuu ahaayey cid la haysato go-aankiisa cafintiisa iyo ciqaabtiisa midna ma laha laakiin kaad aadamaha ka gasho iyada oo ilaahay aad u toobad keenayso ayaadana waxaa kugu waajib ah inaad shaqsigii isaga ahaa ee dembiga aad ka gashay adduun iyo aakharaba inuu ku cafiyo aad weydiisato laakiin isla khaladkii haddaad ku sii madax adeegto waa jaahilnimo weyn iyo doqonnimo aad u weyn marka ha u malayn haddii lagu yidhaahdo waxaan samee ilaa wa ilaa oo awood laguu sheegto in aad tiraahdo ma sameynayo xaggan ka istaagi inaad tiraahdo ha u malaynin inay taasi tahay dabcan gubannimo waa gunnimo kow khaladkii aad lahayd haddii khaladba aad lahayd khaladkaaga waa inaad qirato haddii khalad aadan lahayn markaas iyada ah xoogaa waan ayaad leedahay oo waxaad samayn kartaa waad dagaalami kartaa waxaad dhihi kartaa anu khaladba ma lahayn oo shahaadadaasa joogtay ama yacni muxuu ahaayey shaahidaa joogtay oo anu khaladkaas maba lahayn baad dhihi kartaa laakiin haddii aad khaladki lahayd oo la hubo oo la og yahay oo dadkii dabcan ay ku wada maqlayaan ku wada arkaan ma suuragal ma aha inaad mucangag ahaato iska soo taagnaato anyway isku soo duduub waxaan bogaadinaynaa gabadhaas yarta ah sida muxuu ahaayey dabcan qalbi jalaaca ku dheehan yahay u raaligelisay gabadhi walaasheed ahayd mar walbana haddaan la kala roonaan roob ma da'o soomaaliya marka idinkuna waxaan aad buunbuuninaysaan iyo gabadhan aad leedihiin way baqday iyo gurigaa loogu tegay iyo kan weeye iyo gabadhi kalea la buunbuunaha laga dhaha geesiyad wey kan weye kuus wey waxay isku haleynaysaa dadkii markaasi la socday ay isku haleynaysaa gabadha yar ayay ku bahdilaysaa marka muxuu ahaayey haween kale oo ficeeda ah marka ma haboono inaad buunbuunisaan waxyaabaha khaladka ah inaad saa u kala saartaan hawshu waa wax loo baahan yahay muuqaalka like dheh aragtidaadana commentiga inoogu ballamay mahadsanid